marar badan waxaa dhacda inaadan ku qanacsanayn noloshaada halka dad badan oo dunida ku nool ay ku riyoonayaan noloshaada oo kale inay helaan. wiilka beerta jooga wuxuu arkaa diyaaradan korkiisa socota wuxuuna ku ridayaa mar inuu duulo, balse ninka baylotka ah wuxuu arkaa beerahan quruxda badan wuxuuna ku riyoodaa isagoo nabad qaba gurigiisa inuu kusoo laabto. hadday taajirnimadu tahay sirta nolosha, kuwo badan oo taajiriin ah ayaa ku noolaan lahaayeen nolol aanan stress iyo buuq lahayn. laakiin kuwa saboolka ah waxay guryaha dhisaan ama ay xamashaan ayaga oo faraxsan oo heesaya. hadday xukunka iyo awoodda xaqiijinayaan amni, madaxda ayaa lugeyn lahaayeen ilaalo la'aan waddada. laakiin kuwa u nool si fudud ayaa casriye iyo caways ku qaata maqaayadaha wada furan ayaga oo keligood ah. haddii quruxda iyo magaca keenaan xiriir waara, kuwa caanka ah heesaha ama filimada jila ayaa yeelan lahaa guurka ugu wanaagsan, balse waxa ay hadda haystaan diiwaanka furiinka ugu badan. haddaba farxadda iyo qanacsanaanta nolosha kuma xirna howlbadni, darajo, xil, qurux iyo magac, balse waxa ay ku xiran tahay sida qofka ugu qanacsan yahay halka uu joogo iyo waxa uu haysto. Allah, sida qofka carabkiisa u baraya uguna celcelinayo xuska Alle. xusuusnaa wax walba aad haysato waxa ay ka sugnaadeen xagga Alle. ku xirnaaw oo ku mahadnaq Alle xilli kasta oo dheh alxamdulillaah.